بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. markale kusoo dhawaada cashirkeenii maadada biochemistryga ahaa qeybtiisii labaad. okay, warkana waa warkii haddaan ka sheekeynayay acetic acidkii waaye. markaan wuxuu wataa hydrogen taasoo ka dhigan 4.8 iyo pH marka la isla fiiriyo pH ka yar 4.8 uu kiiriyo pH ka. marka acidkan wuxuu qaadan doonaa hydrogen, wuxuu noqon doonaa marka acetic acid uu noqon doonaa. okay, waa kana hydrogen oo qaadana wuxuu noqonaa marka HA uu noqonaa. sawirka hadda HA iyo A ga uu la jeeday waa kuwana. okay, marka haddii pH ka marka uu ka weynaado pKa ga, pH hadii 4.8 uu kor u dhaafo 4.9 ama 5 uu tago ama 5.8 uu tago, markaas wuxuu sameyn doonaa acidkan hydrogen to bixin doonaa. markaasna waxa soo baxayo A ayaa soo baxayso conjugate base, yani acetate ayaa soo baxayso oo hydrogen tila. okay, marka waxaa jirto يعني qaab graph aan oo loo sawiro. graphkan hadda isla fiirina inta waxaa waye yani inta hydroxide lagu daray OH base uu ahaa, hydrogen tuu kasoo horjeedaa. milanka inta OH lagu daro waa intuu base noqonayo oo acidka uu kasoo tegayo. haddana bilcagsigiisna milanka waa inta hydrogen lagu daro uu acid noqonayo uu baseka kasoo tegayo. marka haddii isla fiirino sawirkan graphkan hadda isla fiirino waxay ka dhigan tahay yani OH haddaba kor inta la aado waa inta OH lagu daro. inta qaybtan hoosna waxaa waaye pH ka oo milanka waaye. isla fiirna marka milan yahay pH kiisa 3 yahay, yani aad u acid u leeyahay milankan. markaas milankani pH kiisa waa 3, يعني waxay ka dhigan tahay hadaa fiirno hydroxide ku jiro uu yar yahay, taasoo ka dhigan marka hydrogen fara badan ay ka buuxaan, yani marka waa acid 3 waay. so hadii hydroxide ku daro hydroxide waxaan dhahay milanka hadii hydroxide lagu daro base xagiisa uu wadaa acidka uu kasoo wadaa. marka hadaa hydroxide ku daro hadda isla fiirisno xoogaa milanka muxuu sameynaa, yani graafka markaa fiirno hydroxide ku daray falaartan ay kasoo tegay marka waxay kasoo tegaysaa 3 ay kasoo tegaysaa dhanka waxay usoo dhaqaaqaysaa base-ka usoo dhaqaaqay dhankan soo socotaa daaragtan. marka haddana muxuu sameynaa soo inta usoo socda kor u yara kaca sababtoo ah hydroxide fara badan ku daroyaa. okay, sa u socda marka aan gaaro barta acetic acidka, barta markaa gaaro 4.8 markaan gaaro ah barta acidkaniti oo hydrogen ku bixinayo ama hydrogen qaanaya markaan gaaro, wuxuu isku dayi doonaa bafar ahaan uu dhaqmo oo uu sameeyo yani inuu diido in milankaniti uu aado dhanka baseka uu aado. marka haddii 4.9 lasii taga marka wuxuu sameynaa wuxuu bixin doonaa marka hydrogen oo bixin doonaa so uu noqdo acetate. acetic acid markaas oo noqdo acetate marka hydrogen oo bixin doonaa. okay, saa aragtaan marka haddii hydrogen oo bixiyo milankaniti graafka muu dhaqaaqi doono, inta muu dhaqaaqi doono dhankaa masii aadayo sababtoo ah hydrogen lagu daray. hydrogenta marka balanced negative isku daya so milanka kor u aadi doonaa dhankaa ma aadaa base xagiisa ma aadaa. okay, si loogu wado marka hydroxide si loogu wado oo base ka dhigaya milankaasi loogu wado hydroxide ka gacan sareynayso hydrogen to laga awood badinaa. markaas haddana milanka wuxuu soo dhaqaaqi doonaa dhankan uu soo dhaqaaqi doonaa pH ka uu soo bixi doonaa ilaa dhanka 7 xageeda soo aadi doonaa wuun ilaa uu ka bato marka dambe. okay, marka markii uu yahay form 1 yani markii acid uu yahay pKa ga 4.8 ay acidka markuu acidka uu yar yahay waxaan soo sheegay haday inuu jiri karo qaabkaasna waxaa loo yaqaanaa form 1 la dhihi karaa acetic acidka ah HAY si kala daaro HAY. haddii marka pH ka iyo pKa ga 4.8 ah pH ka uu ka bato pKa ga waxay ka dhigan tahay markaas acidkan wuxuu isku dayi doonaa inuu
يعني pH uu celiyo 4 uusan ka badanin hydrogen uu siin doonaa markaas waxaa soo baxayso form 2 waa soo baxayso oo ah qaabkaaniti markaas waxay noqonaysaa qaabkan si kala down waxay noqon kartaa conjugate base kay noqon kartaa marka maxaa aragtaan inay ku soo baxada HA conjugate base kii adigoo ku xisaabtamayo pH ku xisaabtamayo marka pH kii iyo HA gii oo ahaa weak acid ka iyo A gii oo ah conjugate base kii saddexdooda xiriirka ka dhaxeeya marka waxaa loo yaqaanaa Henderson-Hazelberg equation okay marka haddii intaas la fiirin quaterkan soo ku soo baxay meeshaan milankan hydroxide ku daray OH ku daray ana OH ku darayo haddii marka la gaaro 4 uu ka bato pH ka acidkan hydrogen oo bixin doonaa marka hydrogen tan iyo waxa isqabsanayaan iyo hydroxide kan waxa ay soo baxaya markaas water ay soo baxayo okay marka aan rabnaa ka soo tagana acetate na ka soo tago oo marka aan tagana acetic acid na waxa ku qasbanahay in hydrogen aan ku daro taas oo macnaheedu ay tahay milanka markaanit waxa way wuxuu soo dhaafay 4.8 ayuu hoos u dhaafay pH ka hydrogen markaas qabsanaa oo noocaan u noqonaa okay waxa fiirin doonaa marka amino acid ka alanine asagana haday amino acid maan soo qaadan waxaan ka hadlaynaa waxay tahay acetate iyo acetic acid oo mid kamid ah kiimikada jirkeena ka dhaxdhacdo muxuu ahaa hadda waxa fiirin doonaa marka hal amino acid soo qaadan doonaa oo ah alanine marka sawirkan aan ku sharxi doonaa war dhama soo qaadin doonaa isla fahamna qaabka hadda leeyahay alanine marka saddex nooc u jiri karaa noocan hadda la fiirisan oo ah in carboxyl groupka uu hydrogen wato amino groupkana uu saddex hydrogen iyo calaamada plus wato iyo wuxuu u jiri karaa qaabkan oo ah in carboxyl groupka uu hydrogen uu tuuro oo negative qaato laakiin weli amino groupka uu saddex hydrogen uu wato iyo calaamada plus ama wuxuu u jiri karaa qaabkan alanine oo ah in carboxyl groupka uu negative uu qaato oo hydrogen uu tuuro isoo kale laakiin markaaniti amino groupka uu laba hydrogen wato calaamada pluskana uu soo wadanin marka saddexdan qaab say ku maadan isla fiirin doonaa okay milanka amino acid ka mar walba markuu hydrogen qaadanayo ama markii hydrogen uu tuurayo wuxuu u fiirinayaa pH ka jirkeena caadiga pH kiisa waxa waaye 4.3 ilaa 4.5 u dhaxeeya dhiiggeena pH ku jiro waxa waaye 4.3 sorry 7.3 ilaa 7.4 u dhaxeeya marka amino acid ka marka kuuga hore markuu bixinayo hydrogen ama hydrogen markuu qaadanayo wuxuu ka soo bilaabi doonaa carboxyl ku ka soo bilaabi doonaa haddana amino group ko siin doonaa oo hydrogen ka qaadan doonaa ama bixin doonaa okay afiirino sidee u dhacaysaa alanine kaniti wuxuu ku jiraa milan oo ku jiraa milanka ku jirana waxa waaye pH kiisa waxa waaye 2 waaye alanine wuxuu ku jiraa milankaas uu ku jiro pH kiisa markii la fiiriyo 2 waaye taas oo ka dhigan tahay pH acid oo ku jira okay marka alanine pH ka acid ka uu ku jiro waxay ka dhigan tahay pH kan waxa ku badan hydrogen fara badan ku jirto marka alanine ka asi markaas wuxuu wataa hydrogen dheeraadi wataa oo ah hydroxide ka yani hydrogen dheeraad oo ku wata carboxyl groupka iyo soo kale amino groupka ee wuxuu ku wataa hydrogen dheeraadi ah markii midkan form 3 loo fiiriyo form 1 form 3 da sabar dhigto inta hydrogen ka maqan intana hydrogen ka maqan form 1 marka fiiriso intana hydrogen ku wataa intana hydrogen dheeraadi ku wataa taasoo macnaheedu ay tahay form 1 kanit alanine kan markii hydrogen uu labada dhinac ku wato carboxyl groupka iyo amino groupka markuu hydrogen ku wato waxay ka dhigan tahay inuu ku jiro solution ama milan acid ah okay yani pKa giisa ka yar socdo marka hafiiriyo waxay ka dhigan tahay marka hadda amino groupkan iyo carboxyl groupkan waxay kala leeyihiin labo pKa kala leeyihiin yani labo cadad waxay kala leeyihiin hydrogen ku bixin karaan hydrogen ku qaadan karaan hal oo fiirnina alaninta carboxyl groupka
barta uu hydrogen ku qaadan karo kuna bixin karo waxaa waaye pH markuu gaaro 2.3 yacni waxay ka dhigan tahay haddii pH-ka uu 2.3 uu ka bato 2.4 2.5 uu noqdo carboxyl groupkan wuxuu bixin doonaa hydrogen si uu ugu soo celiyo pH-ka 2.3 si ugu soo celiyo haddii pH-ka uu 2.3 ka yaraado oo 2.2 ilaa 2.1 uu imaado carboxyl groupkaniti wuxuu qaadan doonaa hydrogen si uu acidka ugu yareeyo oo uu keeno 2.3 u soo celiyo okay marka asla fiirino hadda maxaan dhana marka pH-ka muxuu ka yaryahay 2 ka yaray taasoo macnaheedu ah 2.3 wuu soo dhaafay pH-ka marka muxuu qaadanaa hydrogen uu qaadanaa okay isla aragna marka hydrogen uu qaadanaya marka haddana inta imaano asla fiirino marka net charge-ga marka calaamadu wato markaan maxaa waaye alanin plus uu wataa alanin marka muxuu wataa plus uu wataa sidee soo plus ku wataa meeshaan waxaa u dheeraadi ah hal plus hal hydrogen u dheeraadi ah inta laakiin plus ma wato so plus dheeraadi wataa okay inta fiirina marka alanintan mar kale waxay ku jirtaa neutral pH yani oo 6 ah pH 6 ay ku jirtaa so pH markuu 6 uu yahay alaninta pH yani alaninta waxay ku dhex jirtaa pH oo yani solution pH-kiisa 6 uu yahay ku jirtaa marka qaabkana u jiri kartaa so kan carboxyl groupkan barta uu hydrogen ku qaadan karo ama ku dhiman karo 2.3 waayaan dhahay 2.3 waa la soo dhaafa markaan 6 la sii marooyaa marka hydrogen tuu baxshaysay so negative ahaan u jiraa okay kan wili wuxuu wataa hydrogen tiisu wataa saa darteed qaabkan u jiri karaa markii pH-ka oo ay tahay 6 markay tahay okay afiirna marka net charge-gu wato maxaa waaye so maxaa waaye calaamada uu wato charge-gu wato maxaa waaye 0 waaye wax ma wato sababta afiiri inta plus uu wataa hal plus uu wataa intana hal minus uu wataa plus iyo minus isku bixi 0 ku soo baxay soma marka charge-gu wato 0 waaye laakiin midkan muxuu wataa charge-gu wato muxuu yahay plus 1 uu wataa formunkan plus 1 uu wataa intuu ka keena marka plus 1 kan amino group wuxuu ku wataa hal plus dheeraadi ah laakiin carboxyl group waxa kuma wato waxaan loo yaqaanaa markaas isoelectric form loo yaqaanaa amino acid waliba wuxuu yeelan karaa isoelectric form oo la jeedo isoelectric form waxaa la dhahaa amino acidka markii wax danaba uusan wadanin yani plus iyo minus isku wato laakiin isku baxayaan hadda midkan minus uu wataa midkan plus uu wataa so plus iyo minus isku baxayaan laakiin midkan plus loo wataa minus ma wato saa darteed plus kaliisa ku soo haray marka amino acidka markii wax danaba uusan wadanin oo net charges uu 0 yahay waxaan dhihi karnaa amino acidka waxaa loo yaqaanaa isoelectric form okay form 2 markuu u jira waay see ku helaa marka isoelectric form see ku helaa see ku ogaan karaa amino acidka isoelectric form inuu yahay see ku ogaan karaa waa isla arkeenaa waa isla fiirin doonaa qaabka ku ogaanaysid okay marka qaybtan dhameeyaa isla arki doonaa haddana form 3 ay imaado form 3 gan alaaniinta markaan waxay ku jirtaa solution ah 10 solution pH-kiisu yahay 10 yahay yani dababa dhaafiba 10 uu tagay okay alaaniinta waxay ku jirtaa milan pH-kiisa 10 yahay okay marka markaas qaabkaan u jiraa so haddii carboxyl group ka fiirino 10 minus wataa midkan muxuu wataa H2 wataa plasma ka degi laakiin laba hydrogen wataa intuu ka keena marka so ku hela laba hydrogen okay haddii waxaan fiirinaynay barta carboxyl group uu ku bixin karo hydrogen kuna heli karo inay tahay 2.3 hadda amino group kan intaan fiirinay amino group kan barta uu hydrogen ku qaadan karo oo NH3 ku noqon karo ee barta hydrogen ku bixin karo oo NH2 ku noqon karo waxa waaye 9.1 waaye marka waxa loo fiirinay pH-ka haddii pH-ka uu 9.1 uu ka bato 9.2 9.3 ilaa wax ka badan uu tago amino acid kan qaybta amino group ka hydrogen bixinay si ay u noqoto NH2 haddii pH-ka uu ka yaraado 9.1 oo uu noqdo
sagaal uu noqdo ama 8.9 uu noqdo ama 8.8 uu noqdo waxay ka dhigan tahay in uu hydrogen uu helayo oo hydrogen uu qaadanayo. Okay, marka qaababkan sidaas uu ku noqday. So net charge-ga markaan fiirino waxa waaye -1 waaye. So -1 ku noqday sababta charge meeshan ion hal meeshan waxa yaalani negative ayaalo ion marka la fiiriyo inta laakiin positive ma yaalo saa darteed -1 uu wataa. Form 1 kan muxuu wataa +1. Form 2 na muxuu wataa isoelectric form waaye oo 0 waaye macnaha sababta plus iyo negative way isku baxeen. Okay, say ku heli karaa marka say ku heli karaa waxa loo yaqaano isoelectric form amino acid kan يعني amino acid kan كلمة amino acid waliba say ku heli karaa barta يعني oo 0 charge oo ku wato say ku gaan karaa barta 0 charge oo ku wato say ku gaan karaa يعني oo 0 يعني oo wax charge uusan wadanin oo negative iyo positive isku baxayaan. waxaa sameynaysaa qaacida waxaa jirta marka oo PI la dhaho PI waxa waaye waxaa lagu helaa PI ga isoelectric form ka lagu helaa marka. So waxa waaye waxaa isku qaybinaysaa PK1 iyo PK2 isku qaybinay yani oo isku daraysaa PK1 waxa ku daray PK2 waxa uu qaybinay labo. PK1 muxuu yahay? PK1 waxa la form 1 inuu ka soo tago oo form 2 uu noqdo. Dissociation dhac soo maahan KA ga danka la dissociation dhac meesha maxaa la sameeyay form 1 iyo form 2 farqiga u dhaxeeyo kan hydrogen wata kan hydrogen ma wato marka kan muxuu sameeyay hydrogen to baxshay dissociation uu sameeyay soo ma. Okay, marka K1 Allah marka qaybtan waxaa loo yaqaanaa K1 adaarto PK1 ama meeshan qoran soo ma PK1 inta maxaa qoran PK2. Okay, marka qaybtan oo noqota qaybtan waxaa loo yaqaanaa marka PK1 qaybtan dhaxal ku jiro form 2 gana in noqoto form 3 gana waxaa loo yaqaanaa PK2. Okay, PK1 iyo PK2 waa isku dari doonaa waxa uu qaybin doonaa labo. PK1 meeqa waay 2.3 marka haddii 2.3 aan ku daro waxa loo yaqaano 9.1 oo u qaybiyo 2 u qaybiyo waxa ay soo bixi doonto tiro loo yaqaan cadadkeedu yahay 9.1 u qaybi 2 waxa ay soo bixi doonto 6.8 marka 2.3 lagu daray 9.1 loo qaybiyo 2 waxay soo bixi doonto 5.7 marka 2.3 ku dar 9.1 isku dar u qaybi 2 waxa ku soo bixis marka 5.7 soo bixi marka 6 iska dheh markaas waxa ogaanaysaa pH ka barta amino acid ka acidity oo net charge usan ku wadan oo isoelectric form ku yahay marka kan 6 waa soo maan pH markuu 6 u maray amino acid kaniti wax charge ma wato waa 0 charge ama isoelectric form kiisa marka amino acid waliba saas oo soo saaraysa amino acid waliba waxa fiirinaysaa PKA1 kiisa fiirinay waxa ku diray PKA2 soo ku diraysaa 2 u qaybinaysaa. Okay, Henderson-Hasselbalch equation maxaa goorma isticmaalayna application waxa way markaasiga dissociation constant of the carboxyl group yani carboxyl group ka in dissociation uu sameeyo hydrogen oo bixiyo oo loo yaqaano K1 maxaa yeelay Ka lama dhihi karo sababtoo ah waxaa jiro meel labaad oo dissociation ka sameeynayo marka yani hadaa waxaan soo sheegay Ka inuu yahay markii acid uu kala jawaayo uu soo saaray hydrogen iyo conjugate base soma. Okay, kana waa sidoo kale marka so kan maxaa Ka uu dhihi waay am oo K1 uu dhahay yani K1 waxa uu dhahay waxay tahay bar kale waxaa jirto uu hadana dissociation ka sameeynayo amino group ka sameyn amino group ku wuxuu sameeynayaa hadana hydrogen oo bixinay NH2 uu noqonay. Okay, marka hadii muxuu ahaa reactantiga ay haysatid uu labo meel uu ka kala jawaayo markaasaytii waxa dhigay K1 iyo K2 kala siinay haddii saddex meel ka kala jawaayana K1 K2 K3 yaa siinaysaa haddii laakiin hal meel kaliya oo dissociation ka sameynaya sida acetic acid oo kale markaas Ka aad dhihi kartaa marka K1 waxaa lagu helaa hydrogen concentration oo ku dhacsan
form 2 loo qeybiyo form 1 marka K1 waxaa ku heli karaa hadhay K1 waxaa ku heli karaa hydrogen concentration oo ku dhuftay form 2 loo qeybiyo form 1 okay form 1 kii waa HA gii form 1 maxaa waaye form 1 waa HA gii yani intuusan dissociation sameynin waaye okay hydrogenka iyo form 2 maxaa form 2 waxaa waaye conjugate base kii waaye sababta ah form 1 markii dissociation ku sameeyo hydrogen iyo waxay soo bixiyso form 2 soo marka form 2 gii iyo hydrogen tii soo baxday iyo asigoo form 1 kii ahaa intaan kala qaybin ayaa K1 ku helaa warkaaniti intaas uu ka hadli doonaa marka pH waxaan ku heli karaa pK1 lagu daray log form 2 loo qeybiyo form 1 so qacdii hadaa la soo dharaandhariyay qaybka hadaa dharaandharinta yani waxa uu isticmaala markaaniti example ka hadaa uu isticmaala alanina uu isticmaala marka isla kii hadaa leeyahay warka hadaan ka hadlaa hadda marka wuxuu ka hadlaa qaybtaaniti amino groupka markuu dissociation uu sameynayo marka la sawirka soo naqay warkii leeyahay hadaa sawirkooda wuxuu ka hadlaa dissociation markuu sameynayo carboxyl groupka kan hadda waxa markuu dissociation sameynayo amino groupka okay marka waxa la pKa for the most acidic group COH is pK1 okay yani inta badan amino acidka oo marka oo acidiga ah inta ugu badan amino acidka acidiga ah oo COOH kooda pK1 uu yahay yani koogar waa in la kala jibiyo soo maahan carboxyl groupka markii dissociation lagu sameynayo pK1 aan dhigi kartaa okay marka amino acidka lagu soo xigana markii dissociation lagu sameynayo waxa dissociation kaga sameynaysaa amino groupka dissociation kaga sameynaysaa NH3 ga markaasna waxa dhigi kartaa pK2 yani markan si qolaasis wax iskugu maana hadiiba carboxyl group aad dissociation ku sameysid pK1 uu ku noqonayaa hada amino group dissociation ku sameysidna pK2 uu ku noqon doonaa alaninti hada titration ku sameynayna marka so warkaaniti inta ku jiro goormee marka muxuu ahaa COOH markii CO carboxyl group oo hydrogen uu wato iyo markuusan hydrogen wadan waxay u dhaqmi karaan buffer ahaan u dhaqmi karaan pH iyadoo loo fiirinayo okay sidee marka sidaas la midana NH3 ga iyo NH2 ga ayagana waxay u dhaqmi karaan buffer ahaan u dhaqmi karaan waa soo aragnay pK2 aan loo yaqaan sameyn waa soo aragnay yani markii 2.3 oo carboxylka ah hadii pH ka 2.3 uu ka bato maxay sameynaa hydrogen uu bixinaa carboxyl group hadii pH ka 2.3 uu ka yaraana hydrogen uu qaadanaa buffer ahaan uu dhaqmay saas la mida 9.1 hadii uu ka bato amino groupka hydrogen uu bixinaa hadii amino groupka pH ka 9.1 uu ka yaraana hydrogen uu qaadanaa marka buffer ahaan uu dhaqmayaan okay titration curve waa kana marka inta wali waxa waaye hydrogen hydroxide kii waaye intana waa pH kii marka hadaa aragtaan 0 uu ka soo kacay pH ka so markii yani markii sawirkan hadaa isla fiirino laba meel oo leeyahay Soomaa laba meel buffer looga sameeyna alanin hadaa isla fiirino pH uu soo kacay hydroxide lagu soo diray uu soo kacay pH yani dhankan wuxuu 10 xageedo ran uu soo aado dabadooda waa inuu imaado uu soo kacay markii la soo gaaro carboxyl groupka pKa gis markii la soo gaaro 2.3 markii la soo gaaro wuxuu isku day doonaa inuu bixiyo hydrogen isku day doonaa so markaas ay form 1 uu ka bedelnaa muxuu noqonaa form 2 uu noqonaa markii hydrogen uu bixiyo then maxaa dhacay marka wax yar oo waxa dhacayo uu soconaa hydroxyl ugu daraya markaas hydroxide lagu daro base ka sidhigaysa uu soconaa then markuu socdo wuxuu gaari doonaa soo socda hydroxide loogu daray pH ka falaartinta ka dhaqaaqaysa dhankan uu sii soconaa todobadu u dhaafaya halin hydroxide lagu waday inta hydroxide lagu siyaadiyo oo inta hydroxide kor ay u kacdo waa inta pH ka oo dhanka todobada xageeda aadayo marka hydroxide fara badan hadii lagu daro pH ka dhankan u socdaa dhanka midig waa aadaya OH kana falaartan kor ay u socotaa base xageedis in OH fara badan lagu daro yahay marka
haddana waxaa la tegayaa amino groupka barta uu ku kala jibi lahaa. So form 2 waa intaan ka jiro. form 2 soo u socda markii amino groupka 9.1 la gaaro, amino groupka 9.1 pH yani kor u dhaafo 9.2 uu noqdo, amino groupka wuxuu sameyn doonaa marka wuxuu bixin doonaa hydrogen ayuu bixin doonaa. form 3 markaas isku bedelayaa amino acidka. Okay, marka hydroxide lagu wadaa dan ilaa iyo aakhirka. in PI maxaa marka isoelectric form ka waa isoelectric form haddii aan soo saarno 5.7 waa noo soo baxday, soo buuxi 6 ka dhig. marka barta oo zero charge uu ku wato alanine barta zero charge uu ku wato uu plusna wadan minusna wadan waxaa waaye 5.7 waa pH marka la firiyo ama pH 6 iska dheh. Okay, pH markuu 6 yahay alanine wax charge ma wato, laakiin pH ka markii 2 markuu 6 uu ku yar yahay يعني لبو اي مركو كير يهي 2.3 بيش مركو كير يهي alanine muxuu wataa positive charge wataa. hadii pH ka 9.1 uu ka badan yahay alanine negative wuxuu wataa negative charge wataa. laakiin 5.7 ama 6 markuu yahay pH ka alanine wax charge ma wato, plus iyo minus waa isku ahayaan mina waa is qaadanayaan. okay, meel waxaa jirta marka pH ka uu la mid yahay pKa ga, mar waxaa jirta pH ka iyo pKa ga isku mid ay yihiin, yani amino acid kan bart ku kala jawaayo oo hydrogen ku saarayo ama hydrogen ku qaadanayo iyo pH ka isku mid waay. markaas maxaa dhacaya markii pH ka uu la mid yahay pKa1 oo ah kan yani pH ka 2.3 markuu yahay uu la mid yahay pKa1 markuu la mid yahay waxay u dhigan tahay waxay yani warkeedu uu yahay form 1 oo ah qaybta aan dissociation ka sameynin iyo form 2 ah qaybta dissociation ka sameysay cadad isku mid ah ee solution ku jiraan, yani isku mid waa cadadkooda midna ma badno. laakiin markii pH ka uu 2.3 uu ka yar yahay solution ka waxaa ku badan wili midkan dissociation ka sameynin, laakiin solution ka markii 2.3 uu ka badan yahay pH ka solution ka waxaa ku badan midka dissociation ka sameeyay. okay, hadii ka waran pH ka uu la mid yahay pKa ga waxay ka dhigan tahay in form 1 ka oo ah midka aan sameynin dissociation ka oo hydrogen ta bixinin iyo form 2 ga midka dissociation ka sameeyay way isku mid yihiin oo 50-50 waay milanka qonta boolkii u jira mid waliba. okay, and when the pH is equal to pK2 markii pH kana uu la mid yahay pK2 yani pH uu yahay 9.1 waxay u dhigantaa form 2 iyo form 3 inay yihiin kuwa isku mid ah milanka xagiisa markii loo fiiriyo cadadkooda. ka waran hadii pH ka uu ka yar yahay 9.1 doo ka yar yahay 9 uu yahay ama 9.8 uu yahay markaasiti waxaa badan ama milanku ku badan form 2 ku badan. hadii pH ka uu 9.1 uu ka badan yahay 9.2 9.3 uu gaarayna waxaa pH ku badan form 3 pH ku badan. okay, hadii milanka xandhe waxa ku badan form 3 ku badan. hadii marka pH ka uu 9.1 yahay pKa na 9.1 yahay labadooda isku mid ay yihiin ka waran labadooda markaas way ka siman yihiin tirada way ka siman yihiin. form 2 iyo form 3 ba 50-50 ya ka jiro. marka net charge of an amino acid at neutral pH. okay, pH ka markii neutral uu yahay yani markii 7 pH uu marayo amino acid ka muxuu wadan doonaa danab ahaan markii la fiiriyo physiological pH yani jirkeen sida caadiga ah pH physiologigiis ahaan 7.3 7.4 waay. markaas markii loo fiirinayo amino acid ka danab nooco wadan doonaa. okay, hadii 7.3 7.4 loo fiirinayo amino acid ka carboxyl group ka negative uu ku wadan doonaa. okay, qaybta amino group kana wuxuu ku wadan doonaa positive uu ku wadan doonaa. amino acid waliba qaybtan carboxyl group ka ah negative uu ku wadan doonaa, qaybta amino group kana positive uu ku wadan doonaa markii loo fiiriyo pH ka jirkeena markii loo fiiriyo oo ah 7.3 7.4. oxono waa loo dhahay laakiin glutamate, aspartate, histidine, arginine iyo lysine ayagaas waxay wataan
charge dheeraad ay wataan ee ku wataan saajiinkooda glutamate iyo aspartate acidic amino acid y cashirkii hore waxaad indhahay sababta acidic ay u noqdeen sababta negative ay u qaateen cashirku wuxuu ogaan doonaa hadda markii inta ku barta histidine arginine iyo lysine basic amino acid y yani oo ka dhigan positive ay wataan marka kuwan yani r groupkooda markii loo fiirinayo muxuu ahaa physiological pH markii loo fiirinayo 7.3 7.4 markii loo fiirinayo glutamate iyo aspartate r groupka waxay ku wataan negative dheeraad ay ku wataa histidine arginine iyo lysine markii loo fiirinayo 7.3 7.4 pH kunu yaana r groupka waxay ku wataan saajiinka waxay ku wataan waxa loo yaqaano positive marka basic ama positive charge kana acid ama negative charge waxa loogu bixiyay sababtaas waaye ma u fiirinayno carbox alpha alpha carbonka carboxyl ku dhigan iyo amino group ku dhigan ma u fiirinayno waxa fiirinayna waxay tahay r groupkooda ma negative wata ama positive wata ilan hadaa u fiirna carboxylka carbonka alpha carbonka carboxyl ku dhigan hadaa u fiirinay amino groupka hadaa u fiirnaba isoelectric form noo soo bixiyay sababta inta negative wata intana positive wata isla baxayaan marka zero na charge soo baxayo laakiin arginine iyo aspartate r groupka waxay ku wataan negative ay ku wataan markaas waxa loogu yeerayaa negative ama negative charge amino acid histidine kana iyo arginine iyo lysine kana r groupkooda waxay ku wataan positive ay ku wataan sababta loogu yeerayna positive charge waa taas okay marka walxaha amino acidka ah kuwaasoo u dhaqmaayo acid ahaan ama base ahaan waxaa loo yaqaanaa amphoteriga la dhahaa yacni markii amino acidkan uu noqon karo base ama markuu noqon karo acid waxaa dhihi kartaa amphoteric so waxaan loogu magac daray ampholytis waxaan loo yaqaanaa ampholytis yani ampholytis maxaa laga soo gaabiyey amphoteric electrolytes yani waxay wataan electrons so marna wuxuu noqon karaa positive uu noqon karaa marna negative uu noqon karaa so amino acidku wuxuu qayb qaadan karaa marka base iyo acidku wuxuu qayb qaadan karaa amphoteric dhihi kartaa markaas cashirkan intaasuu noogu egyahay wixii aan qaldan naftiisa shaydaan ay ka ahaatay wixii aan saxanaa la xaggiisa ka ahaatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh